Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan Soomaaliyeed waa in salaam meel kasta oo adduunka joogto waxaan rajeynaynaa caafimaad qabteen anigana sidoo kale alxamdulillaah inta Allah noo siiyay caafimaadka dhammaanteen sida aragtiinba waa deeq darajo iyo maslax mideeye sidii waxay u dhaceen marka asxaabey sheekada meesha filimka laga waday wuxuu ahaa yacni in la dhaho deeq darajo aa dhiibay youtube-ka sharanboy deeq darajo markii hadhow la dilana yacni ay dilaan dadkan waxaa rabay in la dhaho waxaa dilay dadkii kaleeto oo yacni sharanboy la jiray saas darteed laba dad madaxa la isku geliyo waxaa kalifa horta sharmaaka inuu ninkaas horgeeyo uu ka codsado inuu dhaho walaal macaan oo ku bariya youtube-ka xataa qaado fiiriya hadduu youtube muhiim u ahayd hataa kuushaa wuxuu dhactaa youtube-ka ninka walaalka iyo ammaan geli ninkaas ii ammaan geli nin dhalinyaro ahay hamiyaa leegsaale ficina hanaga reebin wuxuu u leeyahay marka xaqiiqda dhabta aan sheego xaqiiqda dhabta ama wuxuu u leeyahay waxay ahayd anigu waa lisoo weerar shaati dawlad ayadoo la isticmaalayo wax report ima laga soo qorin waa lisoo wacay waxaa ligu dhahay halo ninkaas dacwo kaa ah sida ugu dhaqsaa badan waxaa la rabaa inaa kala noqoto dacwooyinka akoontigiisa aa ka xirtay inaa usoo celisid aa ligu dhahay ani waxaa ku dhahay anyway ninkaasi meel foguu jira anaa xaq u leh waddanka joogo may fahantay asaana wax walba soomaalida og qofkii waddada maraya aa weydiisisay yaa qaldanna waa kuu sheegayaan everything asaa facebookiisa iyo wax walba soo bandhigay awood iyo xumaan iyo wax walba inuu dimacsan yahay ninkaasi hanoo hiilinin wuuna qaldan yahay su-aasha kale igu dhahay ninkaas kari waxay ahayd adima aniga iisoo dacwooday waa may so ninkaana kaa soo warayay dacwadiisa markaa ninkaan xaliyo aateedaada xalina ani marka already waxaan dareemay confidence oo haddii batan la xalinayo caadi waaye ninka hadda okay waaye hay waaye ku dhahay hay waaye ha ku dhahay anyway maalintaas waxay ahayd 6 saac 7 saac meelahaas ahayd markay soo wacay waxaa haddana laga imaaday face to face xilig ay gaarayso waqtiga markuu ahaayeen 1 saac habeenimo la gali rabaa la yimaaday like qof walba meesha joogay inuu ogyahay markii la yimaaday aniga waxa oorey leedahay waxaa waaye 3 nin oo askari ay yimaado oo hal nin oo labada yaqaano oo horkacaayo mi fahamtay oo like that operation u socdo kale you know that anyway dadkaasna mission mar walba mission inay fuliyaan iyo howlo kale waa mahane report case iyo arimahaas iyo dada ku xil saaran oo loo gudbiya mar walba mi fahamtay aniga wax ma dhicin wax qalad ma sameynin anyway aniga waali mobilka liga qaatay wixii oo dhan markii liga qaato anuu awood leey isticmaalaya waxa la sameeyay in aniga wato gaari ligu qaato dadka dhan is dhaxgalay shaqmaaka waxa lagu dhahay saaxiibka hadii aragtay badbaadintiisa waxa u baahan tahay waxaan noo soo gudbi mi fahamtay anyway uu gudbiyay akoontiga xataa qaado dhahay waa haystaa mi fahamtay uu dhahay waa haystaa akoontiga xataa mi fahamtay wax walba uu sameeyay isla hada video isoo du video u duubay mi fahamtay markaas oo inuu youtube ninkii soo fadhiisto wuxuu dhahay 24 saac in walaal gareyn soo duubay video isla haweenkaas loo duubay maalinta ku xigtana accident uu galay video hada aragteen haween waa mi fahamtay waxaana ku qasbay videogaasi anigoo la haystay oo wallahi billahi talaahi markii sharmaaki videogaas iyo codadkaasi ninkan u sameeyay wuxuu rabay ani li soo daayay 3 good hours aligu haystay gaari dhaxdiisa mi fahamtay oo meel ka baxsan station ama meel dadka dambiyada galo loo like loo haysta ma ahan meel kale gooniya ligu haystay mi fahamtay anigoo shaati dawladda isticmaalay anyway xaqiiqada dhabta waxay tahay aniga like maanta haddii arrimo qabiil iyo orod iyo ku jiri lahaay aqoonsha joogi lahaay reerkeyga walaalahayga iyo dhaxgal lahaay laakiin hadda arrin qabiil ma taagna meesha maanta garwaa joogaa like aniga oo halkan imaada wallahi billahi talaahi waxaa la isku dayay mi fahamtay asagoo dadka laga dhaadhicinayo programka oo sharma akoontiga si qabiila lagu bixiyay waxaa watay ragga wada ogtihiin mi fahamtay waxaan aniga leeyahay in dhibaateeyo doona markii la dhibaateeyay in la dhaho sharma iyo tolkiisa iyo reerkiisa dileen laakiin arinta saasmeen arrin qabiil madax isku gali waali difaacay waa soo jeedna sax xawadka li garaacday mi fahamtay so maanta like wallahi billahi talaahi hal mar ya like walaal iyo tol iyo qof kasto ila soo xiriir aniga mar walba xadaay out akatiin programkaani program dhalinyaro u taalo waaye program YouTubers iyo arimahaas waa mi fahamtay so this like physical bullying like wax walba adiga oo mailing ah oo wax walba oo xun oo qof lagu sameeyay maanta ceel iyo xumaan laga qadaa lagu sameeyay mi fahamtay so markii adiga dadkaada iyo walaalaha iyo baalku ku kacayaan waxa waaye markii aad la dagaalaysid
shaksi laakiin qof maanta oo dhan qabiil iyo wax xun dawada ku wato oo waxba ka jirin xaqiiqda ku sheega like dadku sheeganayo iyo arrimahaasi dhan maba ku jiraan right now hadda wuxuu madaxa ama xumaan u soo jiiday baayo farxiyo mi fahamtay oo Nairobi imaatay oo dambi inuu sii geliyo rabaa like inuu support ka helo dhankeeda ama ba like si loo difaac maanta hadda xumaantii uu weyneed uu nuu sameeyay aniga ma jecleen inaan soo bandhigo mana rabin aan ka dhaxgal xogahay deeqdaris waa saaxiibkay waa walaalkay sharmaaka soo saaxiibkay iyo walaal aa u noqday asagana walaal u nahay Djibouti inta xamar joogay ilaa Djibouti inta imaanay asaga hagay asaga wax ii qabanay asaga aaminsanaa wax walba oo iga hor imaadana asaga u sheeganay waxa waaye horta dhibka uu sharaan deeq soo maran dhibka aniga soo maray waa isku mid waayo walaalkay way qalbiga ka dareemaya sharmaakana waxa ku iisiyo waxa waaye ciil aniga ba ooyilaha waxaan u ooyilahaana waxa waaye aniga walaalkay ruma oo inta nafsadiisa baax ay khatar ku jirto aniga ma fiirsan karay saaxiib macaan wallahi YouTube aa sheegaysa waxa ku hanti waxa adduunka ii saaran hataa hadii la dalbado waa bixin lahaa sababtoo ah qof YouTube iyo lacag iyo waxaas way dhamaadaan laakiin qof bila aadan noloshiisa ayaa mar walba iiga muhiimsan deeqo saaxiib dadka mar walba waxay rabaan inay jabiyaan ma fahamta laakiin anagu horaa u soconaa wax cid naga qaadi karta ma laha anaga horumarkeena anyway xaqiiqda dhabta aniga ciil iyo xalal xumatii uu xmeeyay noo sameeyay aniga awood noo isticmaalay anyway wiila hadda way sii socotaa war dadkii arinta markay dhacayeen jooga hadda la sii raasanayaa oo leeyahay maadaama deeq telefonkan uu ku hadlay telefonka oo codka lagu duwa adaa lahayd mi fahamtay war walaasheeda oo like lagu dhibaateenay leeyahay maxaa like codkaas adaa duubtay waxaana balan waan isla ogeedeen ina ibratid ina ku dhibaateeyo like aniga wiila soo hadlay like waxa aniga damacsanahay like ma ahan like ina dagaal galo ina qaba bacdan sameeyo sababtoo tahay nin rajadiisa dhan ee tahay inuu dhalinyaro ciilo oo like uu macnihiisa dhan ee ku saleysan tahay maanta oo dhan inuu dad la xumeeyo hadee walaal iyo waalid warku waalidkiisa ku laftu uu sheeganayo naftirkooda uu kala jarjira uu xumeena isku dira qaar uu lacag ku bixina inuu isdeeyay ana waxay u dhahay hormuud iyo dahabshiila meel saar adima ku daaha wallahi billahi ina beenka sheegay waxay u dhahay hadda like lacag ku bixina afaaray arimaha hadda si gishid so aniga like waxa arkay Nairobi inay aniga qatar saayid ii tahay mi fahamtay qof loo dacwan meeshii loo orday loo dacwan lahay dawladda dhan haddii balay soo xaraay waxa go'aansaday aniga inaan ka soo dhax